بسم الله الرحمن الرحيم. ummadda Soomaaliyeed meel walba oo adduunka ku nooshiin ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay. Meel walba oo adduunka ku nooshihiin ciid mubaarak ayaan idin leeyahay. Waxaan rabaa in aan laba ra'yi ka dhiibto meeshan. Ununka dhibaato ayay nagu haysaa qadiyadda qof Soomaali oo dalkiisa iyo dadkiisa qadiyadooda ximbaarsan una dagaalam. qof kastoo Soomaaliya waxaa mooday qalbigeeda in sakiin lagu taabto markii aad tiraaho nin Soomaaliya oo qadiyadii Soomaaliya ximbaarsan ayaa la dhiibay. bismillah, Soomaalida agteeda iyo ani agteedaba aad ayay iga xanuun badan tahay. qofka jidka kaaga hor timaada waxay ku weydiinaysaa qadiyadaas. marka wax kale iska dhaafe nin qadiyadda dalkiisa iyo dadkiisa ee ximbaarsan iska dhaaf halka Soomaalida kasoo horjeedo haddii uu magangalyo uu isdhiibo ayaa bannaanaynin in la dila. marka waxaan dhihi lahay ummadda Soomaaliyeed waxaa shaati noo soo gashtay cadow badan ayaa shaati noo soo gashanaya. waa inaan ka baaraan degnaa shacabka Soomaaliyeed ay dulqaad ay yeeshaan. haddii aan helin ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ee quwadda Soomaaliya uu ahay haddaani aanan la helin iyo dhalinyaradii mutadawiciinta aheedoo xafiisyada dowladda iyo sirta dowladda qari lahayd haddaani aanan la helin iyo ununka calooshayna bannaanka taal iyo sirtayna aanan hadda aan qarsaninoo dulqaad aanan yeelin waxay noqonaysaa dhibaato weyn oo qarankayna iyo dadnimadayna iyo dalnimadayna soo wajaha. waxaad ogtihiin haddii laga soo baxo waqtigii isticmaarka waxaad ogtihiin sandano wax la yidhaaho kow wax la yidhaaho calaamadees qabiil hebel intuu deganaan jiray meeshaan qof hebel ayaa iskale kursi hebel qof kale ayaa iskale waa sandano. waxaan jeclaa lahay taas in ay dadka Soomaaliyeed ay ka foojignaadaan. waxaan rabaa maamul goboleedyada baarlamaan iyo madaxweyne ayaa loo sameeyey. ummadda Soomaaliyeed iyo qarniyaasha naga dambeeya in ay saameyn ku yeelan doonto. ununka hadda joogno dhalinyarta Soomaaliyeed ahna ay nagu leedahay saameyn. waddankaynana aanan guul looga gaari karin. laakiin waddankayna waxaa guul looga gaari karaa in aan dad isbiirid leh aqoon leh inay shacabka Soomaaliyeed ay codkooda ay ku keenaan maslaxa na la helaa dhalinyaro sirta dowladda qari karto la helaa madax sirta dowladda qari karto. waxaan hadda dhacay ay bulshada isla dul qaadaysa haddii ay sir dowladeed ama dowladda Soomaaliya ee maslaxad ugu jirto bannaanka maynan imaalahayn. laakiin waxaan dhihi lahay ummadda Soomaaliyeed in ay ka baaraan degaan federaalka. aniga wax kastaba dan ayaan bidaa Soomaaliya sidai isugu imaan lahayd mar walbaba waa ku farxaa. marna igama dhaadhacsiisno waxaa lagu heli karaa gobol loo sameeyey xildhibaano iyo baarlamaan iyo madaxweyne loo sameeyey waxay nagu reeba doontaa saameynta isticmaarka mid ka sii xun. lagu leeyahay halkii gobol aad 10 uu usii kala qaybsanaa. waa dhabarjab weyn ee Soomaali haddaan nahay nagu yimid. waxaanse dhihi lahay shacabweynaha Soomaaliyeed qashashka aad bixinaysaan ee dowladdiina aad siinaysaan in aad si fiican aad u siisaan la shaqaysaan sirdoonka la shaqaysaan dowladda kala duwan nooca ay rabtaa ahaato. dowlad Soomaaliyeed inaan helno waa lagama maarmaan. qadiyadda aan rabno in aan gaarno waa lagama maarmaan. dadka Soomaaliyeed inay sirtooda iyo calooshooda ay qarsadaan ma shaqayno si aan ku heli lahayn darajo dadkana soo farageliya aan kula xisaabtami karo. waxaan dhihi lahay ummadda Soomaaliyeed mid iga gundo sandano
iyo waxa maanta la jideeyo soomaali 20 sano oo qarni dhalinyarada naga dambayso saameyn ayay ku yeelanay waxaa saameyn ku yeela doono 100 sanatar ee Soomaali matalay ee dad soo dhameeyeen inuuna qarankayna saldhig looga dhigi karin waxaana saldhig looga dhigi karin nin ummad soo dhameeyay qarankayna saldhig loogama dhigi karo ummadda Soomaaliyeed ma matali karo laakiin xaaladda siday taa mar walba waa la qaataa waxaan goobjoog soo ahaynay dowladihii badnaa ee Soomaaliya la soo dhisay nin ana amiir ku dhahay gurigiisa loogu taga lacag fadhiista la yiri walaalow xaad ka leedahay walaalow waxaa naga dhigi kartaa la soo tuugay la aas wax walbo ayada oo la daba joogo ununka oo ka raadinayno maalin maalmaha kamid in aan ka guuleysan haddana maalin maalmaha kamid ee dalkan iyo qarannimadan way guuleysanaysaa shacabka Soomaaliyeedna ha soo celiyo adeegiisa qalbi adeega mar walbaba qaran Soomaaliyeed laga maarmay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.